John ayaa si farxad iyo xiiso leh u furay hadiyadii ay Mary siisay xuska sanad guurada guurkooda, laakiin gudaha waxa uu ka helay waraaq qabow oo furiin ah. John wuu istaagay isagoo yaaban, wuxuuna ku adkaatay inuu rumaysto waxa hortiisa yaala. Haweenaydii ballanqaaday inay weligeed la jiri doonto ayaa hadda ka tegaysa. Isagu ma ogeyn in goortii uu doortay inuu ilaaliyo jacaylkiisii hore Sarah, islamarkaana uu waxyeeleeyo danaha shirkadda Mary, ay Mary go'aansatay inaysan jirin fursad labaad, islamarkaana ay rabto inuu bixiyo wixii dhacay oo dhan. 3 maalmood ka hor, faylal naqshadeed oo shirkadda Mary leedahay ayaa la xaday. John wuxuu ahaa qareen heer sare ah oo 7 sano maxkamadaha aan laga adkaan. Mary si buuxda ayay ugu kalsoonayd, waxayna aaminsanayd inuusan kiiskan lumin doonin. Qareenka ka soo horjeeday wuxuu ahaa qof cusub oo aan la barbar dhigi karin John, laakiin Mary ma ogeyn in qareenkaas cusub uu yahay jacaylkii hore ee John ee jaamacadda Sarah. Sarah waxay ka baryaysay John inuusan ka dhigin mid kiiskaas ku guuldareysata. John si lama filaan ah ayuu maxkamadda uga noqday go'aankiisii, wuxuuna joojiyey dacwadii. Mary aad bay u xanaaqday, ma filayn inuu John sidan ugu sameeyo Sarah, isagoo jebinaya rikoodhkiisii 7 sano ahaa, islamarkaana shirkadeeda ku keenaya ganax weyn. Markii maxkamaddu dhammaatay, Mary ayaa la kulantay John, waxayna weydiisay sababta uu isu dhiibay iyadoo caddayntu caday. John wuxuu ku dooday in isaga iyo Sarah ay yihiin kuwa aan dembi lahayn, wuxuuna sheegay in Sarah ay dhowaan qareennimada qaadatay, haddii ay kiiskaas lumin lahaydna mustaqbalkeedu burburi lahaa. Wuxuu qabtay gacanta Mary isagoo leh, arrintu isaga waa ka duwan tahay, shirkadiisuna aad bay u weyn tahay, lacagta khasaarayna wax weyn uma aha. Mary si xanaaq leh ayay gacantiisa uga jiiday, waxayna weydiisay inuu weli danaynayo. Markaas Sarah si ula kac ah ayay u soo dhex gashay si ay xaaladda u sii kiciso, waxayna ugu mahadcelisay John.